dadka dhaawacahay maanta la qaaday oo haa 13 bukaan ah ayaa waxaa dhoofisay diyaarad qaas ah oo leh adeeg caafimaad ayna la socdeen dhaqaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaad. dadkan iyo kuwa kale oo ku jira isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ka mid ahaayeen dadkii ku dhaawacmay qaraxii ka dhacay hotelka Central 20kii bishii aanu ka soo tagnay, kuwaas oo la rumaysan yahay inay ku geeriyoodeen in ka badan 30 ruux. wasiirka caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya Khadiija Maxamed Xasan oo garoonka diyaaradaha kula hadashay wariyaasha ayaa waxa ay sheegtay dhaawacyada maanta la qaaday kuwii ugu liitay. wasiiradda caafimaadka ayaa waxa intaas raacisay in 2 ruux ay ku geeriyoodeen intii ay ku jireen isbitaalka. wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye Cumar ayaa waxa uu mahadceliyay dowladda Imaaraadka Carabta kaalinta ay ka qaadanayso samafalka shacabka Soomaaliyeed ee dhibaatada ay soo sidoo yiri. qaraxyada ka dhacaya Soomaaliya ayaa ah kuwa soo noqday iyadoo qaraxii ugu dambeeyay Al-Shabaab ay sheegteen lala eegtay taliyihii ilaalada ciidamada bariga maamulka Puntland qarax loogu xiray gaarigiisa gudaha magaalada Galkacyo. taageeraha koowaad Maxamed Ibrahim Macalimo ee ku sugan Muqdisho waa maasantiin. dadka dhaawacahay maanta la qaaday oo haa 13 bukaan ah ayaa waxaa dhoofisay diyaarad qaas ah oo leh adeeg caafimaad ayna la socdeen dhaqaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaad. dadkan iyo kuwa kale oo ku jira isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ka mid ahaayeen dadkii ku dhaawacmay qaraxii ka dhacay hotelka Central 20kii bishii aanu ka soo tagnay, kuwaas oo la rumaysan yahay inay ku geeriyoodeen in ka badan 30 ruux. wasiirka caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya Khadiija Maxamed Xasan oo garoonka diyaaradaha kula hadashay wariyaasha ayaa waxa ay sheegtay dhaawacyada maanta la qaaday kuwii ugu liitay. wasiiradda caafimaadka ayaa waxa intaas raacisay in 2 ruux ay ku geeriyoodeen intii ay ku jireen isbitaalka. wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye Cumar ayaa waxa uu mahadceliyay dowladda Imaaraadka Carabta kaalinta ay ka qaadanayso samafalka shacabka Soomaaliyeed ee dhibaatada ay soo sidoo yiri. qaraxyada ka dhacaya Soomaaliya ayaa ah kuwa soo noqday iyadoo qaraxii ugu dambeeyay Al-Shabaab ay sheegteen lala eegtay taliyihii ilaalada ciidamada bariga maamulka Puntland qarax loogu xiray gaarigiisa gudaha magaalada Galkacyo. taageeraha koowaad Maxamed Ibrahim Macalimo ee ku sugan Muqdisho waa maasantiin. dadka dhaawacahay maanta la qaaday oo haa 13 bukaan ah ayaa waxaa dhoofisay diyaarad qaas ah oo leh adeeg caafimaad ayna la socdeen dhaqaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaad. dadkan iyo kuwa kale oo ku jira isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ka mid ahaayeen dadkii ku dhaawacmay qaraxii ka dhacay hotelka Central 20kii bishii aanu ka soo tagnay, kuwaas oo la rumaysan yahay inay ku geeriyoodeen in ka badan 30 ruux. wasiirka caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya Khadiija Maxamed Xasan oo garoonka diyaaradaha kula hadashay wariyaasha